In ka badan 200 oo maxbuus oo ka baxsaday xabsiga. Walaal like saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee si uu u gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo nagu helno saaxiibo wanaagsan mahadsanid. In ka badan 200 oo maxbuus ayaa waxa ay ka baxsadeen xabsi lagu hayay oo ku yaala magaalada Moroto ee waqooyi bari waddanka Uganda. Maxaabiista ayaa waxa ay toogteen oo khaarijiyeen askari isku dayay in uu hor istaago kahor inta aanay u jihaysan dhinacaasi iyo buuraha ku xeeran magaaladaasi. Maxaabiista ayaa la sheegay in ay la baxsadeen 15 qori iyo rasaas. Xabsiga ayaa waxa uu ka dhisan yahay dhul dhaca buurta Moroto ee ku taala bannaanka magaalada. Ciidamada asluubta iyo militariga ayaa waxa ay bilaabeen howlgal ay ku baadigoobayaan maxaabiistaasi baxsadka ah. Afhayeen u hadlay militariga ayaa waxa uu sheegay in weli ay ku daba jiraan maxaabiistaasi baxsadka ah. Waxa uuna intaasi ku daray in 2 qof nolol ku qabteen halka 2 kalena ay dileen. Warbaahinta gudaha ayaa waxa ay ku waramaysaa in israsaaseynta u dhaxaysay maxaabiista baxsadka ah iyo askarta ay sababtay in uu istaago ganacsigii magaaladaasi.